بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبر السلام عليكم. سيشن كنا maanta waxaan uga hadli doonaa tutorial ku saabsan trading view sida looga samaysto account free ah. Sidoo kale waxaan soo fiirin doonaa basic usage about trading view, yani isticmaalka asaasiga ee trading view, sida aad ku toosan chartiyada iyo toolska kala duwan isticmaalkooda intooda ugu muhiimsan ayaan faahfaahin doonaa fadhigeena maanta. Waa tahay marka hore waxaad browserka aad ku soo qori doontaa tradingview.com, kadib waxaad dhihi doontaa enter, waxaa ku soo bixi doona layoutkan. Halkan waa productska uu leeyahay tradingview-ga, community-ga ku xiran, marketska uu ka shaqeeyo tradingview amaad ka heli karto markets kala duwan. Dhammaan waxaad ka heli kartaa financial markets entire world, they are indices, stocks, and crypto, forex, future, whatever, even government bonds. Okay, sidoo kale waxaa ka heli kartaa, waxaa jira brokero gaar ah kaasoo yani aad ku xiran karta TradingView. Waa tahay marka waxaad leedahay get start, waxaad arki doontaa page-kan, then waxaad ka dooran doontaa get start. Okay, then waxaad dhihi doontaa sign up and waliba 0 for free haddii aad rabto 0 ama bilash aad yani aad ku isticmaasho TradingView si lacag la'aan ah. Ama waxaad aadi kartaa qaybtiisa planiska, asoo waliba wuxuu leeyahay ilaa iyo 5 level oo kala duwan. level kastana wuxuu leeyahay muhiimad gaar ah iyo qiimo gaar ah. For example, levelka ugu horeeya loo yaqaanaa waa essentialkaas per month waxay ka rabaan inaad bixiso $13, laakiin waxaa ka horeeya 30 maalmood oo ah free trial. haddii 30kaas maalin uu ku qanciyo TradingView sida uu shaqeeyo, lacagtaas waxay ka jaran doonaan bangigaada. haddii aadan ku qancinna waad iska cancel kartaa. So markaad leedahay essentialka, waxyaabaha ama adeega aad heli karto ayaa halkan kugu qoran. hal kitaab waxaad ka heli kartaa 2 chart oo kala duwan ayaad saaran kartaa. indicatorada ilaa iyo waxaad isticmaali kartaa per chart 5 indicators. marka all these waxaad heli kartaa haddii markaas aad gadato planka essentialka. qaybta markaas ku xigta plankaas waa qaybta loo yaqaano plus. pluska xogaa essentialka waxyaaba uusan lahayn ayuu leeyahay oo wax badan ayuu ka duwan yahay arkayso. so marka all these plans waad qaadan kartaa, laakiin annaga fadhigeena maanta waxaan rabaa inaan kaliya kaga hadalno qaybta free-ga. marka waxaad dhihi doontaa markaas sign up, waxaad kaliya siin doontaa sign up oo ah yani abuuro account. okay, marka account waxaad ku sign up garan kartaa haddii aad doonayso Facebook-gaada ama X ama waxa loo yaqaano Twitter-ka, Yahoo-ga, Apple-gaad ku xiran kartaa iyo LinkedIn-ka intaba. laakiin annaga waxaan rabaa hadda inaan ku xirano email-ka. okay, marka halkan waxaad gelin doontaa email-kaada oo noqon doona user-ka ayaad gelin doontaa. halkan waxaad la iman doontaa password-ka. markaad geliso password-kaada, then wuxuu kaa rabaa inaad dhahdo I'm not the robot policy ee halkan ku yaalo. marka halkan waxaad siin doontaa click, waxaad leedahay I'm not the robot, then waxaad xalin doontaa aad ku verification garin doontaa image soo soo dhigay file hydrant, then waxaad leedahay verify oo qaatay, then waxaad leedahay create account. okay, now marka wuxuu diri doonaa verification link, ayuu wuxuu u diri doonaa emailkii aan ku soo samaysanay ayuu diri doonaa. waa kan halkan waxaa emailkii nagu soo dhacay verification link baan raacinaa. then waxaan leenahay activate, waxaan ku dhiganaa active. okay, marka waxaan finish garan doonaa abuurida accountigeena. so marka halka kan aad rabto waad dooran kartaa. wuxuu ku leeyahay mar rabtaa inaad heshid emailada marketingka ah iyo soo dhigi kartaa ma iska din kartaa. laakiin kan waa must inaad taabato terms and policy, then waxaad dhihi doontaa next. okay, marka now accountigeena saas ayuu noogu samaysan yahay. marka waxaan rabaa inaan toos aan u tagno qaybta chartska. hadda waxaan set garaysanay halkaas waxaan ka arki karnaa informationkeena ay noogu jira. marka waxaan aadaynaa si toos ah qaybteena chartska.
chartska simply waxaad ka geli kartaa laba meelood. halkan aad markets aad tagto kadib aad hoos soo socoto aad tagto for example forex oo kale then hal lacag aad doorato then toos aad ugu dhifto chart aad heli kartaa ama inaad lacagtii halka kan toos aad ugu qorto anaad CRG si toos ah hadda gool kale ayaad dhihi kartaa toos marka launch chartada si toos bal igi simple now you are at the charts hadda waxaad joogtaa dhanka iyo chartyada aad taagantahay. Okay marka waxaan ka shaqeyn doonaa chartyada kuwa kan iyo isticmaalka kala duwan intaan uga baahnaan firin doonaa. qaybta ugu horeyso charts markaan joogno cornerkaas ee leftiga ah waxaa inta badan laga soo doortaa lacagaha kala duwan qaybta aad rabto ama lacagihii aad ka dooranaysaa. hadda waxay ku saaran tahay all haddaad doorato stocksna waxaad arki kartaa keliya stockska haddaad doorato fundska only futures only forex waxaas oo kale. laakiin waxaan dooranaynaa qaybteena all ayaan dooranaynaa. halka marka waxaad ku qori doontaa lacagta aad rabto inaad yani kala soo baxdo trading view ama inaad falanqaysato ayaad click siin doontaa. Okay waxaa marka ku xiga halka kale waa qaybtan waa time frame-ka. time frame-kan haddaad siiso click waxaad dooran kartaa time frame-da aad rabto. hadda wuxuu noo saaray 15 minute 30 minute 1 hour whatever aad rabto aad dooran kartaa. sidoo kale waxaad ku samayn kartaa qaybtaas inaad usoo doorto menu ahaan inaad banaanka u keensato adigoo markaas start gareynaya oo hadda for example haddii 15 minute kale aan ka taabto start aan click siiyo kale wuxuu ku leeyahay add to favorites banaanka uu iman doonaa. 1 hour waxaan siin doonaa click xagga start kan xiddigta 4 hour 1 day 1 week inta marka halka ayaan ku arki doonaa arkaysaa. hadda kale waxay ii muuqday 15 minutes laqad waxa kale ii muuqanaya 1 hour iyo 4 hour 1 day iyo 1 week intaba way muuqanayaan kuwa kale halkaas ay ku sii jiraan oo la soo baxaya. Okay way qaybtaas waa qaybta time frame-ka. waxaa ku xigay qaybtan kale loo yaqaan chartska. haddii marka aad furto chartska waxaad dooran kartaa marka nooca aad ka rabto ama design-ka aad u rabto ama aad u jeceshahay inay kugu muuqdaan chartska. hadda waxay noo saaran tahay qaybta candles. haddaan waxaan ku dhigan karnaa Paris qaabkaas oo kale aan ku dhigan karnaa waa Paris. haddaan doono waxaan ka dhigan karnaa area saas ay ugu muuqan karaan area. waxaan ku dhigan karnaa line oo kale whatever one. laakiin inta waxaa useful ah candleska ayaa waxay yihiin useful kuwa aad loo isticmaala. waxaa marka ku xiga candleska qaybta kan loo yaqaan ayagana indicatorska iyo strategiska metricska halkan aad ka heli kartaa. dad kale ku siisan oo marka indicatorska lagu talagalay lagu darso suuqa strategiyoyinka halka aad ka soo qaadanaysa marka waxaad leedahay strategy inaad ku soo darsan doontaa strategy aad rabto iyo indicator aad xiisaynaysa intaba. Okay qaybtan kale waa alertiga replayga. alertiga haddii aad tahay freega waxa laga yaabaa inaad hal jeer aad leedahay laakiin replayga mostly dadka freega ma helaan been suuq replay aad ku samaysato. okay qaybtan kale ayadana saas oo kale waxay ku xiran tahay inaad waa layout setup-ka. haddii layout setup aan ku dhifano kale yani waa inaad heli kartaa 2 tabs iyo wixii ka sii badan yani 2 tab markay. okay marka this marka format waa hal jeer inaad hesho ama shaashada inaad ku aragto dhowr tab kala duwan kuwaas oo aad ku falanqeyn karto dhowr lacag oo kala duwan kala time frame ah. laakiin waxay ku xiran tahay inaad leedahay markaas hadda wuxuu ku leeyahay qaybta aad joogto current balance waa basic waxaad markaad leedahay hal. haddii marka aad rabto inaad isticmaasho tabs kala duwan waa inaad hesho upgrading yani gada ayuu ka rabaa marka waana lacag bixisaa. laakiin qaybta marka freega ah yani ma laha tabs kala duwan marka ma falanqeyn karno qaybtan. okay maxaa kale inoo harsan inta aan usoo laaban doonaa qaybtan usoo laabto. this tool marka qaybtan kale hadda inoo muuqanaysa this section ayaan waxaa loogu talagalay just for drawing-ka marka suuqan aan rabno inaanu sawirno
ayaa loo isticmaalaa qaybta tan. Okay, intaanan aadin qaybta kan toolskan waxaan ku laabto time frame-kan iyo si isku waafaqayaan candleska kan. Okay, waxa kan ku muuqanaya waa shumaca ama candleska suuqa looga talagalay halkii candle time frame-ka waqtiga uu shaqeyn waxa go'aaminaya waqti adigu aad u dooratay. hadda currently waxay noo dooran 4 hours. waxa marka ay ka dhigan tahay halkii candle wuxuu noo shaqeyn doonaa 4 saacadood 4 hour. qaybta hoose ka fiiri waqtiga maanta waa Tuesday 15 July 2025. saacadood fiirin kartaa haddii marka aan tagno candle ku xiga it means wuxuu haystaa interval 4 saacadood ah, taasoo ka dhigan candle walba ka hor muuqanaya wuxuu shaqeyn karayaa muddo 4 saacadood maadaama aan dooranay time frame 4 saacadood ah. haddii marka aan doorano time frame 1 day ahna waxay ka dhigan tahay each candle isagana wuxuu shaqeyn karayaa ama wuxuu shaqeynayaa 1 day. sida ku muuqan arkaysaa maanta waa 15 candle ku xiga wuxuu noqon doonaa 14 kan ku xiga 13. qaybta safir arkaysaa yani each candle represents 1 day. haddii marka aan doorano week waa the same scenario bas sheekadii iyadoo waxay ka dhigan tahay in candle walba uu shaqeyni doono hal asbuuc. marka kaas waa qaybta candleska. waxaan markaan ku laabanaynaa qaybteena toolska. waxaan ku laaban doonaa qaybtanadii ahayd toolska. okay, marka this tools waxa qaybta kan waxa ka soo qaadan doonaa kaliya waxa ugu muhiimsan mar waqti aan sii fogeyno trend line-ka ayaa ugu horeeya qaybtan toolskiisa ah. this trend line waan baran doonaa xarajinta suuqa lagu ogaado inuu suuqan u socdo kor ama uptrend ama inuu yahay suuq downtrend ayaa la saartaa ayaa loo isticmaalaa. waxaa loo yaqaanaa trend line ayaa loo isticmaalaa. this is trend line suuq ayaa la saartaa. okay, wuxuu leeyahay oo kale horizontal line ray all these marka are useful ma la isticmaalaa. haddii marka aad yani inta aad ka xiiseynayso waxaad saaranaysaa star sida hore soo sheegnay. waxaad saaran doontaa star trend line-ka aad u baahan tahay horizontalka all these waxaas leeyahay qof walba istaraatiijiyada uu yani uu danaynayo ku xiran tahay qaarkoodna waa laga marmaan. marka waa kan meesha doonta degan kartaa aad saas usoo deersato. okay, qaybtan ku xigta waxa loo yaqaano Fibonacci retracement ayaa halkan la yiraahdaa. Fibonacci wuxuu ka mid yahay most useful tools ee loo isticmaalo in lagu falanqeeyo chartskan. wuxuu inta badan uu Fibonacci uu ka sheekeeyaa retracement iyo suuqa potentially support iyo resistance uu samaysan lahaa iyo inta badan ka hadlaa. dabcan waxay u isticmaalaan strategy oo fiirin doonaa. qaybteena kale forecasting ayaa ayadana aanu aadaynaa. forecasting asna waa saadaalinta suuqa oo qofku wuxuu soo qaadan karaa long and short oo kale ayuu soo qaadanayaa. halkaas ayuu dhiganayaa suuqa maadaama trend line uu soo taabanayo waxaan saadaalinayaa inuu up noqon doono something like that yani sameynaysaa إن هالكم سوق يقدر يعني له كله. سمرك this long forecasting أما بحليه هاي بحليه خانو short يكله فايسة هاك يسوي جبسن دونا my forecast إن هالكم يمن دونا. okay, مركب one of the tools even this وحقوق حسابين دونا إن PBS كلا دون أتخاطم دونت اللي بقى risk ratio دنا أما triple R كا والله حساب سنكره. alright, qaybta kan waa geometric shapes-ka ayagana waxaa ku jira useful items aan u baahanahay laga isticmaalaa. waan arki doonaa. qaybta kan waa masarada ama measurement-ga lagu sameeyo PBS-ka suuqa caadiga ah. halka kan waxaad ka samayn kartaa drawing mode yani markaad wax sawirayso trend line oo kale inaad istaagto qaab drawing mode yani qofku mar walba inuu soo qaadan uu taagnaado drawing mode-kiisa. qaybtan waa
deletionka inaad iska tirto dhammaan indicatorskii wixii aad soo qaadato dhan inaad iska tirto heli kartaa ama mid ama all inaad qaadato kale. So marka halkaa kan waxaa nagu idil tooliskii aan u baahnaan lahayn inaan ka isticmaalo TradingView. halkan aan imaano qaybtan kale cornerka xagga midigta aan fiirino. halkan waxaan uga baahanahay qaybtan oo kale sectionka haddaan fiirino waxaan arkaynaa word list inay ku jirto kale. marka waa word list aad u baahan tahay inaad ka eegato suuqa. word list wuxuu noqonayaa lacago si gaar aad ula socoto ama aad u danaynayso inaad u ogaato qiimahooda halkan waa soo dhaweysanaysaa. haddaad rabto inaad yani aad ka saarto word listiga halkaa waxaa ku sawiran calaamadda daliilka ah iska tir delete ama iga saar dheh. halkan DJI way baxaysaa qaybta indiceska waa stockska. haddii marka aad rabto forecastna waxaad leedahay add igu dar add then pluskaas yani haddaad taabato waxaa ku darsoomayo yani waxaa taabato arkaysaa uu kugu daray plus markaa dhahdo wuu kuu keenaya. okay arkaysaa anyway halkan marka waa qaybta word listiga. word listiga waxaa inoogu xigay qaybtan kale ayadana alertska ah. alertska ama alarmiga waad samaysan kartaa laakiin waxaad leedahay one time haddii aad tahay free. qaybtan kale ayadana waxaa ku xigta waxa loo yaqaano data window. data window waa macluumaadka markaas window ama daaqada kuu furan xogteeda oo dhammaystiran ayaa lagu siinaa. marka waa kan wuxuu ku siinaa marka candleka ku chart ama lacagta aad ku jirta ee furan waxa weeyaan waa x ama waa lacagta goldiga loo yaqaano. chartiga waa 4 hour ama waa h4. meesha aad ka open gareysay ama laga open gareeyay ayuu fiirinayaa high uu gaaray lowga marka loo fiiriyo 4 hour chart kaliya highgiisa lowgiisa closingka change-ga volume markaas uu taagan yahay iyo last day markii loo fiiriyo change uu sameeyay as percentage ayuu ku soo bandhigaya. marka halka marka waa macluumaad ama waxa loo yaqaan data window yani waa xogta ku saabsan windowga ama markaas daaqada ku furan in markaas aad aragto aad hesho ayuu ka caawinaya. marka waxa marka ugu dambeeya qaybteenan loo yaqaan customizing-ka ama inaan markaas shaashada tan aan ku sameeyno customizing waxaan ka bedelno. for example waxa samayn kartaa dhowr waxyaabood inaad sameyso kala right click then aad tagto setting-ka waad heli kartaa ama si toos ah setting-ka halkan ayuu kugu yaalaa labadaba waa isku mid. okay anyway setting-ka click ku sii. okay marka waxaan samayn doonaa inaan badbadalno dhammaan shaashadeena yani waxaan ka dhigaa hadba saan rabno midabka aad xiiseynayso waxaad rabtaa green waxaad rabtaa red pink andhaho whatever black. anyway marka haddii marka aad doorato your favorite colorka aad ka rabto shaashada markaad doorato kadib taasaad ka dooranaysaa. waxaa kaloo muhiim ah koosheerka iyo text line oo kale yani qoraal laga arki karo lama rabo qoraalo isku mid ah. for example oo kale text waa black haddii kan aanu ka dhigno kale black maxaa dhacaya inay noqdaan yani all wada black aan la arkin range-kii ama scale-kii lacagta. marka waa inaad doorataa kalaro iska soo dhex bixi kara kalaro la iska dhex arki kara. markaan ka dhigno white way ku muuqanaa. marka adoo isku arrange gareyso dooro your favorite color aad rabto. halkan waxaad dooran kartaa watermark waxaad dooran kartaa in background laga arko lacagta aad ka dhigan kartaa. waxaa kaloo muhiim ah aan dooranaynaa waan wax ka bedeli doonaa qaybtan sample-ka oo kale. sample-ka waa sida markaas uu ku muuqan lahaa bodiga lacagaha kala duwan halka ku saaran midabka hadda lacagaha waxay noo yihiin bodigooda iyo powderka iyo wikiskaba sida tan green iyo red. greenkaas aan ogala jeedno kuwa bulishka ah. marka haddaad doonto waxaad ka dhigan kartaa any color adigu aad rabto. markaas mastama inay ahaadan green laakiin useful waxaa loo garan ogyahay greenkaas. haddii markaa doonto waxaad ka dhigan kartaa white sida kuu muuqato qaybtan qalana waxaad ka dhigan kartaa haddaad doonto black inkastoo black aan la arkaynin markaan laakiin waxaad ka dhigan kartaa yellow oo kale.
markaas yellow and white aad ka dhigan kartaa. Waxaad ka dhigan kartaa yellow and white, laakiin waxaan u doonaynaa redkiisa iyo greenka maadaama ay yihiin kuwa useful ah aad loo isticmaalo. Halka kan waxaan ku text oo kale this text si toos ah waxaad u soo qaadan kartaa text. Halkan waxaad ku qori kartaa oo kale note card oo kale waxaad dhigi kartaa new resistance oo kale new resistance ayaan joognaa. waxaad qortay laftirkooda waxaad ka bedeli kartaa colorka sorry waxaad ka dhigan kartaa white. Okay, waxaad ka dhigan kartaa white meesha doontana waad dhigan kartaa new resistance. Halkan waxaan ka rajeynaynaa new resistance oo kale waad dhigi kartaa symbol. Okay, ama waxaad samayn kartaa loo yaqaan call out. Call out ay samayn kartaa oo ah ana dhaho kale call out waxaa leedahay wait the break oo kale so halka ilaa uu kasoo break gareynayo kale something like that waa samayn kartaa. Okay, anyway waxaan noqon doontaa xiisooyin kale sida markaas loogu shaqeysto ama loogu falanqeeyo, laakiin casharkeena maanta waxaan uga hadlaynay kaliya sida loo sign up gareysto ama loo samaysto account TradingView kaasoo free ah iyo basically waxyaabaha ugu muhiimsan aad uga baahan tahay inaad ka isticmaasho TradingView-gaada. waxaan rajeynaa haddii aad daawatay videohan inuu kuu noqon doono useful kana caawin doono saad u samaysan lahayd TradingView weliba aad ugu samaysan lahayd customization sida markaad hadba aad ka rabto, hadday noqon lahayd midabka, hadday noqon lahayd time frame-ka iyo hadday noqon lahayd sida ay u ekaan lahayn chartskaada. aad mahadsantihiin.